waddooyinka kala duwan ee lagu gudbiyo xogaha lagu wadaago macluumaadka marka la joogo baraha bulshada waxaa ka mid a bodkaastyada kaasoo ka dhaqaaqa inta badan ku soo gudbinta wixii war iyo wacaala qaab maqal ahi maadaama ereyga asalkiisu ka yimid isugeynta laba eray ee markaasi kala brodkasti iyo weliba ibod oo ah laba eray oo loo isticmaalo idaacad ama tabin toosa oo dhegaysi ahi barnaamijyo kala duwan oo xog cufanna ku jira ayaa lagu wadaagaa ama lagu soo tabiyaa aaladda bodkastiga arrimaha sayniska iyo horusocodka aqoonta ku aaddan tiknolojiyadda iyo weliba tallaabooyinka dheeraynaya ee ay markaasi qaadaysa caafimaadka iyo muhiimadda fahamka jidhka bini'aadamka iyo boodkastyo ku hawlan ka hadalka arrimaha bulshada arrimahaasi bulsho oo ay hoos imaanayaan lifaaqyo badan sida ka hadalka jacayl dawladnimo xaalada nafsi ah iyo weliba kuwo kale oo la halmaala kusoo dhawaada codka ubax fiidnimo wanaagsan sababta weyn ee keentay in aan codka ubax asaaso waxay ahayd xiise aan jeclahay warbaahinta in aan tabiyo xog aan jeclahay inay ummadda gaadho sababo kala duwan awgood faa'iido u leh ay wax ka kororsanayaan aniguna aan u helayo meel aan u mariyo ummadda wixii aan xiiseynayay oo waxaa looga hadlaa dhaqaalahoo kale dee waa siyaasaddu ka mid yahay caafimaadka waxbarashada cadaaladda waxaasoo dhan intabana waan kaga hadalnaa codka ubax laakiin loogama hadlo dee sida ay caanka ku yihiin warbaahinta kale maanta joogta marka waxaan isku daynaa in waxaan laga hadlayaa uu noqdo dhanka laga soo gelaya dhan bulshada faa'iido u leh dhanka laga eegaya ay tahay maxaynu qabsan karnaa maxay noo qabsoomay maxaa looga sii gudbayaa halkan in markaas su'aalo noocaas la isweydiiyo dadna iyada oo barnaamijkii uu noqday mid aan bulshada sii kala fogeynine dhan loo wada jeedo uu dhammaado mawaadiicdan kaga hadlaa waa mawaadiic nafsiya baxd oo hadba iyakaa isfurfuro isfalkiya maaha wax pre-planned ahoo meel ku qoranoo mawduuca markaad ka hadasho kaana ka hadal kaana ka hadal kaana ka hadal maahae markaad mawduuc ka hadlay laba ka hadlay saddex ka hadlo feedback bay igu soo noqda dadku message bay iisoo diraan email bay iisoo diraan waxay kaga duwan tahay way ka fududahay samaynteeda hadday noqoto way ka fududahay in la bilaabaa way ka fududahay marka loo eego inaanad u baahnayn telefishon iyo liisan iyo maxaa anteenooyin waaweyn iyo rasiifaro waaweyn iyo waxyaaba aad kiraysato satellite-ka waa adiga iyo mobilkaaga ayaa runtii waa markay ugu fududahay in aad ama cod iskaga duubto ama aad muuqaal iskaga duubto marka labadaba waa noqdaa podcast-ku dabcan marka waa bulshadii oo loo fududeeyey in amaba ay u fududaatay inay wixii iyaga niyaddooda ku jiray ama qalbigooda ama maskaxdooda ka guuxayay inay dad kala wadaagaan cidun baa xiisayn doonta marka way ka fududahay fikra lagaga hadlaa arrimo dee xasaasi oo wax lagaga hadlaa sii hooseeya weliba wax lagaga hadlaa arrimo yani cid waliba xataa madaarisadaha ayaa barkaasya leh saas oo kale amaba meel gaar ama makhaayad gaar baa barkaas leh saas oo kale marka waxay noqotay wax cid waliba ay si fudud samaysan karto cid walibana ay dadkeeda helayso sidaas laeg podcastku waxaa la yidhaaho youtube-ka markay noqoto ama facebooka ama instagram-ka waxaad dareemaysaa horta wuxuu dareemaya qofka bani aadamka ahi dhawaanshiyo wuxuu kale oo ku fiican yahay in xogtii iyo macluumaadkii lagu soo gudbinayay in ay qofkii uu fi mutanaawalil jamiic ay tahay oo isku si loo access garayn karo waxaa laga yaabaa qofku inuuna facebook dad badan baa facebook iska xidhay asbaabo shakhsiya asbaabo caayiliya asbaabo kale oo iyaka u khaasa isaga xidhay dad badani waxaa laga yaabaa in marka ay noqoto youtube-ka ay attentionkooda ama focuskooda uu baaho oo mar walba xayeysiiska soo dhex galo oo mar walba wax deetana ay ka xiisa jabaan wixii ay dhagaysanayeen meesha podcastku uu yahay in qofkii mujarad click ay ka xigto dabeetana howlihiisii uu qabsanayo haduu wax karsanayo hadduu soconayo haddii uu allahuma salli calaa maxamed nasanayo
yacni mar walbana isagoo macluumadii dhagaha kula baxaya.